بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا ورباهينات كان أنا ما أنتقبناي وكسب سيء هاي وحين وجنا هاي إن ما نتشري حيد دورشوين كسكوست كان قلها وكيل هذا يقول ياش ديجان كو أي ود كنا كقب صنطي وحين وجنا هاي إن ورباهين السومال لان أي دور مهم أي كل حيد تبنت يكورمدا dhacdadaas si weyn ee bulshada Soomaaliland ay aad ka sugaysay ee ku saabsanaya doorashada iyo sidii loo codeeyay iyo doorka ay doorashadaas ka qaadanayso dimuqraadiyiinta Soomaaliland oo ay bulshadeena Soomaaliland aad iyo aad muhiim ugu tahay waxa aan rabaa doorkii wanaagsanaa ee ay ka qaateen warbaahinta Soomaaliland inaan ku hambaleeyo inaan mar kale iraahdo waad ku mahadsantihiin waan idinku hambaleynayaa sida xirfadu leh aad uga soo tabiseen dhacdadii weyneed ee shalay dhacday wadanka ka dhacday ku saabsaneed doorashada labada gole ee isku sidkanaa ee Soomaaliland guud ahaanba goboladeeda looga dareeray oo wararka iyo dhacdooyinka iyo xogaha daqiiqad ay bulshadu u heleysay hadii ay tahay bulshada caalamka iyo hadii ay tahay bulshada Soomaalilandba oo cidda tabinaysana ay ahayd warbaahinta Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba oo arintaasina ay sawir fiican oo qurux badan doorashadii shalay iyo tacabkii iyo dadaalkii bulshada reer Soomaaliland ay ka bixisay marka waxa aan hambaleynayaa guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliland meel kasto oo ay dalka ka joogaan waxaan ku hambaleynayaa sida quruxda badan ee xirfadda leh ee ilaa imika ay uga qayb qaadanayaan doorashooyinka xilligii oo la lahayn ogeyn kaalinta ay ka qaateen xilligii ka horeysay baynu ogeyn xulista ilaa aynu soo gaarnay maalintii shalay ahayd dhacdada weyn ee wadanka dhacday oo si qurux badan oo xirfadaysan ay wariyaasha Soomaaliland saxafiyiinta Soomaaliland ay uga hawlgaleen arintaasi oo ilaa subaxnimadii hore ilaa intii la soo xiliyayba cidda daqiiqada u soo dhigaystay ay ahayd saxafiyiinta Soomaaliland marka waynu ku hambaleynaynaa dhacdadaasi arinta labaad ee aan rabo maanta in aan warbaahinta la wadaago waxay tahay waxaynu ognahay dadaalkii iyo tacabkii bulshada Soomaaliland in imika la sugayo natiijadeedii natiijadaasina ay tahay midda go'aaminaysa cidda soo baxaysa cidda u xil saaran inay tahay commissionka waxa aan ku dardaarayaa saxafiyiinta Soomaaliland meel kastoo joogaanba in natiijadaasi cidda laga sugaya ay tahay commissionka doorashooyinka cidda wax laga weydiinaya inay tahay hay'adaha arintaasi ay khusayso haddii ay commissionka tahay oo haddii markii commissionka soo dhaaftana cidda cabanaysa ama marka cabasho timaado cidda loo weydiinayaaba commissionka iyo ay noqonaysaan hay'adihii garsoorka marka maadaama oo tacabkii bulshada ay gashay aynu sugayno xilligan waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa bulshada Soomaaliland gaar ahaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kastoo joogaanba in arintaasi aynu aad uga taxadirno natiijada sugisteeda oo cidda aynu wax ka weydiinayna ay noqoto cidda arintaasi ay khusayso wararka been abuurka ah ba xilligan badan oo ilaa maanta Facebook-yada ay dadweynuhu ku wadaagayaan laakiin cidda warka saxda ah looga bartay ay tahay saxafiyiinta Soomaaliland iyo warbaahinta Soomaaliland marka inaynu ka taxadirno war kasta oo been abuur ah oo xilligan bulshada la soo dhaxdhigo oo noqonaya mid dhibaato ku keenay tacabkii iyo dadaalkii bulshada reer Soomaaliland ay maalintii shalay ahayd ay muujiyeen ay ugu dareereen doorashada waxa kale oo soo jeedinaya commissionka doorashooyinka qaranka oo ah hay'adda u xil saaran doorashooyinka ama natiijada laga sugayo ku dhawaaqisteeda cidda wax laga weydiinayana iyaga ay tahay waxaan commissionka iyo mas'uuliyintooda aan ku dardaarayaa in ay xogta ku saabsan doorashooyinka ay bixiyaan oo ay la wadaagaan saxafiyiinta Soomaaliland ay la wadaagaan warbaahinta Soomaaliland si arrimaha yar haddii xogtiina la waayo ay bulshadu rumaysan karto ay meesha uga baxaan waxaan soo jeedinayaa commissionka doorashooyinka mas'uuliyiintiisa inkastoo mashquul fara badan iyo culays fara badan uu jiro haddana in xogta la siiyo saxafiyiinta Soomaaliland si aynu uga taxadirno in tacabkii iyo dadaalkii bulshada Soomaaliland uu wax kala soo dhaxgalo ama warar been abuur ay suuqa soo galaan marka waxaan u soo jeedinayaa commissionkana in ay xogta bixiyaan oo wixii looga baahdaba ay saxafiyiinta Soomaaliland la wadaagaan warbaahinta Soomaaliland la wadaagaan si arinta yar aynu ka baqaynay markii suuqa soo gasho ra'yiga la isweydaarsanayay aanay noqon mid ay bulshadu rumaysato saxafiyiintana waxaan soo jeedinayaa war kasta oo been abuur ah
waa ka mamnuuc saxaafadda iyo saxafiyiintaba marka aynu ka taxadarno aynu cidda aynu arrintaasi wax ka weydiino aynu daba fadhino ha noqoto hay-adaha arrimaha soo xilsaaran aada iyo aad baad umahadsantihiin mar kale waan idinku hambalyaynayaa shaqada wanaagsan ee ilaa imika aad ka haysaan doorashooyinka oo ah sawirka cidda bixinaysa somaliland iyo sida ay u eg tahay doorashooyinka iyo tacabka bulshadu ay gashay iyo sida ay u ekaanayaan cidda gudbinaysa ay tahay innaga mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu